maanta waa ku faraxsan yahay waa qalan jibiyay shahaadada waa qaatay. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada madax ka socotay dawladda Victoria iyo madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Melbourne ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay gabdho Soomaali iyo Afrikaan oo dhameystay tababar la xiriiray sidii ay uga mid noqon lahaayeen hogaamiyaasha mustaqbalka. waxaana tababarkan bixisay hay'adda shaqo-gelinta iyo xirfad u samaynta haweenka ee Australia oo ay maamulo ka tahay Xalima Kaaraan oo kamid ah dumarka ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo horumarinta mustaqbalka haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Melbourne. barnaamijkan aan qabanay wuxuu ahaa leadership young girls leadership course wuxuu ahaa barnaamij aan aad iyo aad ugu barnay muddadii yareed oo ay baxbaranayeen gabdhahaas waxaan rajaynaynaa inay already hore u sii ambaqaadaan ama ay sameeyaan sidii ay u gaari lahaayeen level ay iyagu waxay soo barteen ay u gudbiyaanin gabdhaha dhalinyarada ah oo kaleeto aad waxaan ugu dhiirigelinayaa hooyooyinka Soomaalida barnaamijkan waa qabanqaabin doonaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inay dhalinyarada gabdhahooda ku soo dhiirigeliyaan oo ay u sheegaan haddii ay yiraahdaan waa aadaynaan ku dhiirigeliyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Thank you Bafo meeshatan mar walba aan barnaamij leeyahay waa timaadaa waan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka aad nagala soo qayb gashay waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan waalidiintii hawshan fuliyay gaar ahaan gabdhihii cunada sameeyay gabdhihii muxuu ahaa decorationka keenay iyo muxuu ahaa engineer Abdullahi oo isagana cultural horena dars uga baxshay hadana cultural staffkiisa meeshan keenay dhammaan madaxdii community-ga iyaga Soomaalida oo meesha yimid iyo dadweynaha oo dhan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. gabdhahan oo badankood ku dhashay Australia ayaa aad ugu riyaaqsan tababarkan ay qaateen. Assalamualaikum magacayga waxaa la dhahaa Najma maanta waa ku faraxsanahay inaan dhameynay leadership program keena sameynay 5 bilood maasha Allah dad badan baa isku imaaday maanta dadka oo government kala shaqeeyo dawladda la shaqeeyo waxa isku imaanay dad badan oo si fiican waa loo hadlay. Alright, so today I graduated from the Women Empowerment Program and I'm excited to see what the future has in stake. I really am committed to this and I really love this opportunity and I'm hopeful that more people will join and thank you very much for having me. waxaana la siiyay shahaadyaal oo qurux badan waxaana la siiyay dad badan waxay dhaheen wax fiican waxay dhaheen maanta waa bilowgeena leadership keena hadda aan bilownay so insha Allah hadda maaha ma joojinayna waxayna gabdhaha baa soo socda Soomaalida so iska jira. madaxda jaaliyadda Soomaalida oo iyana ka qayb galay munaasabadan ayaa ka waramay ahmiyadda ay u leedahay gabdhahan inay tababarkan dhameystaan. aad baan ugu faraxsanahay runtii maama Xalima waxaan ku naqaanaa inay tahay qof active ah shaqada ay tiraahdo waa qabanayaana sida ay tahay u qabata aad baan ugu faraxsanahay in dhalinyaradii ay maanta waliba gaar ahaan dumarkii gabdhaheenu ay barnaamijkan ka qalin jabiyeen waxaan rajaynaynaa inay noqdaan mustaqbalka hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ama Australia ee wadanka ku dhaqan. maanta runtii waxa lagu farxo waa halkaan aan isku nimid women's leadership graduation ay Xalima Maxamuud ay soo qaban qaabisay hay'adeeda runtii Xalima waa qof muwaadin Soomaali ah oo magaaladan wax badan ka sameysay runtii waa hormoodka dumarka ku faan magaalada Melbourne barnaamijyadani barnaamijyo hore oo qabatay runtii waxay ahaayeen wax aad u xiiso leh oo runtii dhaqaajiye shacabka maanta waxay soo bandhigtay barnaamij ay gabdho Afrikaan ah leadership training ay ka soo saartay runtii oo wax lagu farxa ah waxaan ka filaynaa Xalima inay intaas ku dhaqaaqdo waxaan rajaynaynaa mustaqbalka waxa wax ka badan inay sameyn doonto dowladda. aad baan ugu faraxsanahay Xalima Maxamed Xalima Kaaraan ee lead gareynaysay oo dhalinyarada lagu sameeyay leadership barnaamijka wuxuu aad ugu fiican yahay iyadoo hoggaanka la baray dhalinyarada Afrikaanka haddana ayaa wuxuu siinayaa platform ay ku hadlaan dhalinyaradeenna badan ama helaan chance ay ama iskuulada markay dhigtaan ama jaamacadaha dhigtaan waa dad minority ama helaan chance ay ku hadlaan oo fikradahooda iyo waxay aaminsan yihiin ay ku soo gudbiyaan barnaamijka marka arrintaas uu siinaya aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa in la sii wado doodaha noocan oo kale ah dhaqankeena Soomaalida oo la soo bandhigay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Xalima Kaaraan iyo tiimka la shaqeeyaba oo mahad celinayna. sidoo kale asxaab iyo waalidiin ayaa iyana goobta ku sugnaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay
graduationkaas inaan ka qayb galnay magaranaysaa qalinjabintaas marka anagu oo qaarka iyaga waalidkii yahay walaalihii ah dadkii ehelkii iyo dad kale oo magaranaysaa waddanka madaxdiisii ka mid ana waa imaadeen aad baa u mahadsantihiin barnaamijka maanta wuxuu ahaa barnaamij aad u qiimo badan oo dad community-ga aad qiimo badan uga leh ee ka soo shaqeeyeen oo liidharo in lagu daydo ah sida Xaliima Kaaraan maama Xaliima iyo barnaamijka aad buu u socday dhalinyaro firfircoon oo ku faraxsanahay in liidharo noo soo socdaan. Tonight really just showed what is possible when our community leaders get together and put the focus towards what's really needed. More strong and independent women who can lead us into the future. We need more diversity in our leadership. Xaliima always aad baan u jeclahay say mar walba ugu taagantahay Soomaalida inay maartay wax ka dhigto oo ay jeceshahay wax walba ay hesho oo maartay oo dawladdan xaq aan uga leenahay in mar walba ay dan noo soo dhiciso waxaan leeyahay Xaliimo khayr badan Allah ku siiyo sidaad ugu istaagto ummadda Soomaaliyeed waxaan ku leenahay thank you very much Xaliimo annaguna waa inaan ka faa'iideysanaa Xaliimo ugu dambeyntii waxa ay gabdhahani soo bandhigeen ciyaaro hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. To be here for the celebration and graduation of the African Australian Young Women's Leadership Program. You guys are the leaders of tomorrow. That's the thing we need to work out now, not the short trip. What I would say is that the young women who started this leadership course, sometimes it's just difficult to start. You already started, you finished the course. I'd like to say here in Victoria that Victoria is working towards a treaty, and I'm part of that, and I put myself as an ally in that struggle, in that progress towards a treaty, and federally. I acknowledge the statement from the heart, and that's part of another discussion that we as Australians will have about our constitution and our commitment to our First Nations people, because they're part of the beautiful multicultural mix that makes up who we are. All of these young women are studying, some in year 12. We all know that that's a terrifically difficult year, but also they're at university and they're very dedicated to their studies and careers and what they have to offer in the future. Some have left university and are in professional careers. And part of what we've learned here is about leadership. Yes, it's about community leadership and how we can make a better local community, a better community that we live in. But it's also about how do we take the skills that we've learned here into our professional lives. Because we need to break some ceilings. As women, we need to break some ceilings. And we are changing that. So lovely to hear about majority women on our local government here. So there's a brilliant example. Injineer Cabdulaahi Aadan ayaa munaasabadan kaga qayb galay agabka dhaqanka Soomaalida uu ku keydiyo Australia. Bandhigyada noocan oo kale ah si uu ugu faa'iideeyo dhalinta ku dhalatay halkan si ay wax uga bartaan dhaqankooda. waxaa la igu casuumay barnaamijkan oo ku saabsan muxuu ahaa Young Ladies Leadership barnaamijkan oo lagu qabtay maanta magaalada Melbourne barnaamijkan ayaa anigana markaa daraadeed waxaan u keenay si ay caruurta gabdhaha dhalinyarada iyo dhalinyarada wiilashaba ay u iloobin dhaqankooda ayaan waxaan u keenay qalab fara badan oo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ah qalabkaas oo doonayay inay mataqaana iyagana ay ku bartaan hidahooda dhaqankooda iyo mataqaana ay gacanta ku hayaan mataqaana Soomaaliya iyo waxyaalaha dhaqanka Soomaalida ay leedahay ayaan meeshaas anagana waxaan u keenay qalab fara badan qalabkaas oo ay kaga soo qayb galeen halkan mar walba aan u keenay markay farshaxan jiraan markay mataqaana barnaamijyo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed Australia ayaan waxaan u keenaa qalabkoodii inay arkaan qalabkii farshaxanka Soomaaliyeed. Give me free
give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. And we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. 12 gabdhood oo ka mid ah gabdhaha halkan ku dhashay amba ku koray ayaa barnaamijkan tababarkiisa ka qayb qaatay muddo gaaraysa 5 bilood waxaana la soo gabagabeeyay maanta oo halkan lagu guddoonsiiyay abaalmarin shahaadooyin gabdhahan waxa loo tababaray inay noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia